ninkan libaaxan ayuu abaal u galay 7 sano ka hor oo isagoo raji ah oo ay hooyadii turtay ayuu meel ka helay kadib wuxuu siiyay gargaar iyo daryeel uu u baahnaa. Wuxuu u fidiyay jacayl daryeel hagar la'aan ah. Libaaxan dhadiga ah ama gool sida loo yaqaano oo ay hooyadii turtay ayuu soo korsaday siina dhammaan wixii ay ahayd in la siiyo xayawaan yar oo la koriyo. Toddoba sano kadib ayuu go'aansaday inuu dib ugu laabto libaaxii yaraa uu soo koriyay oo markaa noqotay gool weyn oo leh khatar libaax oo rasmi ah taasoo waxyeello ba'an u geysan karta qof bini'aadan ah. Waxaana suuragal ah markan inay ilowday oo ay waxyeello ama khatar uu naftiisa ku waayi karo u geysan karto, balse ninkan ayaa ku dhiiraday inuu dib ula kulmo xayawaankii yaraa ee u galay abaalka isagoo aan diyaarsan wax badqabkiisa ilaalinaya. Waxaana looga digay inuu sidan uusan yeelin, balse isagu go'aankiisa ayuu ku adkaystay oo wuxuu ku socday qorshihiisa ah inuu dib ula kulmo libaaxadii yareed ee uu soo korsaday oo markaa noqotay libaax weyn. Balse sidii la filayay si u dhow toona ma dhicin oo libaaxadii ayaa noqotay mid aan ka abaal dhacin. Waxayna xasuusatay ninkan soo koriyay abaalkii uu galay. Hab ayay siisay waxayna muujisay dareen qiiro ah oo sida waalid ilmihiisa dib u soo booqday oo kale ayay ugu dhagtay. Adduunyadana waxay noqotay qisadan qiso cajiib ah oo muujinaysa xayawaanaadku inay leeyihiin shucuur iyo xasuus mararka qaar abaalka loo galo aan iloobin.